haddaynu hiddaha xoolodhaqatadii hore ee soomaaliyeed maansadooda ka dhex goobno waxaan helaynaa sheekooyin iyo maanse dhab u ammaanaya martisooraha wax u quura kubkubooraha sadcaalka ah isla markaasna dhaliilaya muudalka ay gacmaha gurani ku yaallaan waxay ahayd bulsho isku raacsan tilmaamo dhowr ah oo kolba kii ku tilmaaman u tiqiinin horaad nolol dheer loo jeclaado geeridiisana laga naxo waxaa ka mid ahaa geesinimada xaaja aqoonta marti u roonaanshaha xarragada dulqaadka iyo aftahamada martida oo si fiican la isugu xilqaamo si wacanna loo sooraa waxay ahaan jirtay tilmaan uu gabyaagu dadka leh ku ammaano isaga qudhiisuna uu ku faani jiray markay maansayahanada kale ishayaan suugaanta martiduse waa tan badane maxaan ku tusaaleeya allaylahe aan ku bilaabo gabyaagii la odhan jiray xaaji cismaan sharmaarke oo ka mid ahaa madaxyaweynta sadanadii hobyood magaca dheer ku lahayd sida la sheegay waxay ul iyo diirkeed ahaadaanba mar dambe ayaa isaga iyo suldaan cali yuusuf wax soo kala dhex galeen sidii loo joogay baa barsadii talada gabyaaga laga waayey sababta dhab ahaan looma oga hase ahaatee abwaan cali qamar siduu iigu warramay arrintu waxay ka dhalatay suldaanka oo ka masayray cismaan oo ay bulshaweyntu aad u ammaantay aadna u hormarisay siday dadka qaar ku dambaabaanna madaxda soomaalidu ma jecla baa la yidhaahdaa magac aan keeda ahayn oo la wadwado si kastaba ha ku dhacdee muddo haddii la joogay oo xaggii suldaanka wax dabacsanaana laga waayey ayay cismaan ula ekaatay in laga jidbixi waayey suldaan calina uu ka gardaran yahay markaas buu gebiyey wuxuu sarbeebay inuu maagan yahay sadanadaba inuu ka daraabo haddii uu sidaas yeelana suldaan iyo ka hoosowba la wada tebi doono laguna darsan doono markii uu haddaba tirinayay arrimaha lagu tebi doono ayuu wuxuu ku daray deeqsinimadii iyo martisoorkii ay la ahayd in lagu wada yiqiin tixdaas oo dhextaalkeedu yahay sow la tebi maayo wuxuu xaaji cismaan ugu arartay tixda gabay guraasow baryahan daayay tirinteedii xaraantow ka soo iri hurdada goor dalool tagayee waxaan tabayay mooyee anoo taa hayaan kacayb 11 jirkaygii waxaan tarayay laydiidiya boqortiirshihii aan ahaa laytix gelin waayey kol haddaan tawalo oo dhukacotu aan la gaaraynin 5 haloo aan laga toobanayn sow la tebi maayo 5taas hal waxaan sidaan soo sheegay ka mid ahaa marti u roonaanshaha markaas buu yidhi erga 10 habeen soo dhaxdoo timid halkaan joogo tuldageeda inaan looga waad igu taqaaniine waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaa ee gacantan tashiirada aqoon sow la tebi maayo xaaji axmed fiqi oo ilka dahab ku magac dheeraa wuxuu ahaa gabyaa reer gallinsoora oo waagii uu noolaa bartamaha dalka si aad ah looga yiqiin siday caadada maansayahanadu u badnaydna haweenay uu dhowaan guursaday ayuu u tiriyey gabay dheeroo uu ku waaninayey isla markaasna uu anshigiisa ku barayey arrimihii uu kula dardaarmay oo badnaa waxaa ka mid ahaa inay u roonaato martida oo kolkuu joogo isagaaba joogee kolkuu maqan yahay aanay reerkiisa ku hungoobin si gaara wuxuu ugu adkeeyey wadaadada qur-aanka afka ku haya inay fadhiga uga kacdo oo aanay marnaba ku sheekayn qoyskii ilka dahab inay soo mareen waxna aanay ka soo dhadhamin wuxuu yidhi qaamowraan martida waa inaad qurux u soo dhaaye waa inaan qaraabo iyo xidid kaa qalgodahayne waa inaan culimmada qadsani qoyska soo marinee qaariga markaad aragto waa lala qushuucaaye qadar loo karsho iyo neef la qala waa qamacadaane ha la quursan qadow caanaheed qabax yaraad haysabu aniguba qorqoda ma ahi oo kuuma qayb xumiye adna qiimiley iyo ahaw qaafadii dumarka sida ay martigelinta wacani hidihii hore ee soomaalida ugu ammaanayd ayay mudalnimada iyo marti ka seexashaduna ugu dhaleecaysnaayeen barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo xusay muudalka martida ka seexda magacxumada ka raacdaa isaga uun kuma ekaatee warasadiisa ayay u gudubtaa looguna halqabtaa beri baa waxaa isu gebi jiray
gabaygiina meel xun ka gaadhay laba ninoo tirinta maansada caan ku ahaa waa qowdhan ducaale suldaan iyo cabdi warsame baanji oo cabdigahayr lagu naanaysi jiray gabayo aan waxba la isula harinoo isracay gaaray waxay isu tabiyaanba qowdhan baa u bayray wax ka sheega warsame waa cabdigahayr aabbihiisa isaga oo ku ceebaynaya inuu ahaa xaajamayaqaan afgarooc ah oo geedka shirka laga eliyo iyo muudal doog iyo abaartoona aan martidu qoyskiisa ku leexan ayuu yidhi shir duddo ah haddii laysu tago degalka gaaroodi oo reydabtii loo dugsiyey dahab la waageeray da'roon muranta baanaha markii laysku wada daaray halkii raagan loo dooni jiray daabicii ficilka darac buu ahaayoo warsame loo dambaabiray waa tii faqii laga diray uu daababkii qoraye dadka ceeluguuduu aryaha didiye mooyaane inteebuu dacwiga loo qabsaday deedifada reebay marti daashay oo goor makhrib ah dadabta loo heelay inuu mayd digaaga u qaro u dirira mooyaane intuu gool dureemada ku koray daacad ugu loogay waxaa la yidhaahdaa bakhaylku ma xishoodo waxa dadka kale ay dhaqankiisa ka qabaanna dan kama yeesho wax walba waxa uga daran xoogaaga uu haysto qayb ka mid ahi inay gacan kala gasho waxaa kaloo la yidhaahdaa marka ay waxbixin joogto bakhaylka dadku uma kala socna waa qorqode oo afadiisu maamulka reerka wax kuma laha bakhaylka ceebtu ma karto oo qofka wax u galeen amaba ku xil leh iyo midka aanay waxba isu ahayn waa isugu mid si ay haddaba taas inoogu muujiyaan waxay soomaalidii hore ina dhaxal siiyeen sheeko maad iyo murugaba leh oo nin bakhayl ah laga sheegay waxaa la yidhi habeenada ka mid ah ayaa ninkaas muudalka ah waxaa soo martiday sodohdiis haweenaydii uu qabay hooyadeed weeye markaas buu ka seexday islaantii oo ay calooshu gubanayso islaantii oo cad caano iyo badartoona aan tan iyo xalay jidiiman ayuu waagii u beriyey barqadii iyadoo xagga reerkeedii u hilhelanaysa ayaa waxaa la soo joogsaday bakhaylkii gabadheeda qabay ee xalay ka seexday markaas buu yidhi oo sodo xaggee baad u xirxiran tahay ma tegaysaa waxay tidhi haa maandhe waan sii soconayaa markaas buu isaga oo qadaadka xoqaaya cirkana kor u dhowraaya ku yidhi oo sodo maad iska joogtid xalayba waxnama aad yeelinay murtida faraha badan ee martida ku soo aroortay markaynu dhab ugu kuurgallo waxaan ogaanaynaa in martisoorku uu soomaalidii hore ola mid ahaa waajib ka mid ah kuwa ay diinta islaamku dadka fartay ee haddii la daba maro aakhiro la isku qabsan doono sidaa darteed bay ruuxa soo martiya aad isaga xil saari jireen xataa haddii colaadi jirto oo isaga ciddiisa iyo midda uu martida u yahay ay weli birtu ka qoyan tahay dadkuse waa dhiifoonaayo ma badnayn qofku isaga oo garanaya inuu ku hoydo colaad aan weli laga heshiinin qolo ay ka dhexayso tan uu isagu ka dhashay marmar bayse dhici jirtay ruux sodcaala oo warmoogihii inuu goor habeena ka soo kor dhaco ciddaasoo kale taasoo haddii uu ogaan lahaa aanu ku hakadeen iska daa inuu ku hoyde markaasoo kale ninka la martiyey muxuu yeeli jiray sida hagaagsan loona badnaa waxay ahayd in martiga la sooro haddii la garto iyo haddaan la garanba la nabadgeliyo waa berigii inta loo hamuun tiro isaga oo bad qaba reerka laga ambabixiyo waddadana cagta loo saaro ha yeeshee kolkol bay sidaas si ka duwan ahaan jirtay kolkol bay ceebi dhici jirtayoo ninka la soo martiyey aana hore darteed uu nafta ku weysiin jiray kii xalay isaga oo warmoog ah u soo hoyday waxaa haddaba jirta sheeko la yaab leh oo arrintaa la xidhiirta muujinaysana sida dhaqankii hore ee soomaalida uu martisoorku ugu weynaa isla markaasna nin la dilay in loo aaraa ay u ahayd waajib walaalkii ama in adeerkii dusha ka saaran oo laga rabo inta uu jirkiisku isku yaal inay dhiiggiisii dhiig ku daraan waxaa la yidhi dagaalyahan gabyaa ahaa oo qarnigii 19aad noolaa lana odhan jiray ilaa wadhaga jarco ayaa nin sodcaalihi goor ay fii tahay reerkiisa soo martiyey isnabdaadin kadib
ninkii intuu daal sheegtay ayuu doonay inuu reerka ku hoydo, taasoo laga yeelay. show isla markiiba ilaawe ninka wuu gartay. show kolkuu la soo joogsadayba wuxuu ogaaday inuu yahay 15 gu ka hor hebelkii ay ilma adeerka ahaayeen kii dili jiray. hase ahaatee martigu isagu war iyo wacaaltoona arrintaas uma hayn. ilaawa ma uu garan, sidaa darteedna ma ogaan karin inay wax isu galeen isaga iyo ninkii gacantiisa jeer ku bixi jiray. si kastaba ha ahaatee ilaawa isaga oo aan wax dhiilaa ninkii dareensiin ayuu gogol wacan u dhigay, habeenkiina si goobeed u sooray. waagu kolkuu bariyey ayuu haddana kii oo anbabaxa doobi caanaa u geeyey. isaga oo caanihii dhammaaya ayuu awal wuu fadhiyey intuu kacay ku yidhi isug, oo inta aqalkiisii ku noqday kala soo baxay oo ta dhagaleey ah oo xiiraysa. martigii oo markaas caanihii dhammaystay socodna u darban ayuu soo dul joogsaday. markaas buu garka wadnaha hootadii kaga xabaalay oo markuu dhacay inta kala soo baxay haddana caloosha kaga tumaatiyey, dhabarkana ka saaray. beri dambe oo isaga iyo martigii wixii dhex maray la wada ogaaday ayaa lagu yidhi, ilaa wow ninka haddaad bedilayso maxaad habeenkii u soortayoo aad neefka shilis ugu qashay, waa berigiina aad caanaha uga durduurtay. wuxuu ku jawaabay, martisoorkana allaa igu lahaa, aniguna dhiiggii ina adeerkay baan ku lahaa. waa tahay soomaalidu waxay ku mahmaadaa fallaadhi gilgilasho kaagama hadho, taasoo loola jeeda wixii kuu eg inaad yeesho uun mooyaane marmarsinya raadis iyo cudurdaar toonihii kuuma bannaana. hiddihii hore ee soomaalidu siduu ahaana koox ha ahaato ama ha ka badatee ciddii ay martidu soo tamadisaa waxay ku qasbanayd inay u hesho gabbaad dugsoonoo ay cawadaas ku barido iyo intii ay joogto wax ay gasiimato. sabool kasta ha ahaadee cidda loo martida yahay meel ay ka keentaba waa inay labadaa arrimood ka soo dhalaashaa, haddii aysan yeelinna waa lagu ceebin jiray. waxaa la yidhi wadaadkii caanka ahaa ee la odhan jiray sheekh maxamuud cali qablax oo xer badan wata ayaa beri reer saboola u soo hoyday. wadaadku wuxuu watay ari 60 oo siyaaro loo soo siiyey. ninkii reerka lahaa markuu arkay martidii faraha badnayd ayuu naxay. ha yeeshee wuu ka xishooday inuu carraabiyo. markaas buu ardaa u dhigay oo gogol u keenay. arigii ay wateenna intuu kaxeeyey kiisii ku daray. si wacan ayuu habeenkaa martidii u sooriyeeyey. ari badan buu u qalqalay. subaxiina hilib buu ka dhargiyey. waa berigii martidii oo dharagtayoo inay reerka ka ambabaxaan ku tashan ayaa ninkii saboolka ahaa wuxuu u yimid in cali qablax oo xertii dhex fadhiya. intuu salaamay buu ku yidhi, sheekhow dul iyo samir waxaad leedahay, bal iiga waran. sheekhii oo halhayskiisu ahaa dayran ayaa ugu jawaabay, dayran ikhwaan, kaaga warramaye horta haddaanan dul lahayn waxaas oo dad ahi ima raaceena way iga hari lahaayeen, ee intaa dul baan ku wadaa. tan samirkana waxaan kaa idhi mar wixii idhaafa uma tiiraanyoodo. markaasaa ninkii yidhi, sheekh waa hadal wanaagsan, waxaanse kuu sheegayaa arigii aan xalay idiin qalqalay anigu ma lahayne kiini buu ahaa. maxaa yeelay anigu sabool baan ahay, xoolana 30 baa laygu ogyahay ari ah, xaasna waanahay. shalay gala markaan idin arkay baan ka xishooday inaan idin carrowsho, dabadeedna arigiinni baan xalay idiin qalqalay. markaas buu in cali qablaxinta qoslay ku yidhi, dayran oo ikhwaan in mise neef baad noo qashay. markaasbuu ninkii yidhi 30. markaasaa in cali qablax yidhi 30ka kalena qaado, maxaa yeelay mar haddii adigoo saboola inaadna carraabiso aad ka xishootay, wax kasta noo qaloo waa inaan kuu abaalgudnaa. halkaas baa ninkii saboolka ahaa ku xoolaystay, ceebna kaga baxsaday. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja ee barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halka